waan ku salaamay saaxiib. Qallaanimadaydi mir ayaan waayay kubaddaydii casayd. Si kastoo aan u baadhayna ma aanan helin. Hadiidii Allah naxariista ayaa igu tidhi, dheeh ilaah maalinka aan muranka lahayn qiyaamo dadka kulminayow, baadidayda la kulansii. Waan idhi markaasaan helay kubaddaydii. Saaxiibka waan weynaaday. Waxaan ogaaday inay jiraan waxyaabo waayitaankoodu oo qalbiga kala dhambarayo in ka badan intii qalbigayga xanuunjiyey waayitaanka kubadda casayd. Waanigaas caawa qalbigayga gacanta ku hayee leh ilaah maalinkaan muranka lahayn qiyaame dadka kulminayo baadidayda la kulansii. Qurbanimada aan dareemayo darteed, waayitaanka dadka aan jeclaa qariibnimada aan ka dareemayo darteed, ayaan leeyahay ilaahay oo naftayda ila kulansii. jacaylka aynu bashka ku sidano weynaysa darteed, qof ayaa noqonaya qudheenna. Istaji saaxiib, ka maqanayda maalin ayuunbuu soo laabanayaa. Maanka ku hay sidii nebi muuse naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee hooyadii ku soo laabtay iyo sidii uu ilaahay dhacdooyinka cadabka iskugu habeeyey oo u diyaariyey si uu hooyadaasi wiilkeeda ugu soo celin lahaa. Webigii soconayay ayuu ilaahay ka dhigay dhambaal sidaha muuse gaadhsiiyey Fircoon. qalbigaasi ayuu dabciyey si ay gowraca ugu horjoogsato. naas kale inuu nuugow ka xarimay. waanigaas iminka aniguna adiga aadka kugu xiisay sidii nebi muuse hooyadii naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaan ku sii siqayaa in laygu imtixaamo. si ilaahay ayaa qalbigayga quweynaya oo uun is adkaynaya. si buuxda waanu yaqiinsanahay in maalin uun idama leh ii soo laaban doontid. haquusan saaxiib, ugu dambayn dadka isjecel way kulmaan. haylaawin kala dheeraashii Yacquub iyo Yuusuf naxariistii nabadgelyo korkooda ahaatee koox gardarro wada ayaa kala fogaantaasi ka shaqeeyey walaalo qalbi adag oo aan digiixan ayaa ka arrimiyey. socoto xorta addoon ahaan u gadaya, suuqna way u helaan. boqorkii Masarna wuu iibsaday, xaaskiisina xabsi ayay gunta u dhigtay. kadibna rogaal celiskii dhacdooyinkaasi waxa uu ka soo bilaabmay riyadii boqorka. yuusufna xabsigii waa ka soo baxay, waxau noqday madaxda sarsare ee Masar. ilaahay kulan barakadeed ayaa uu isaga iyo ehelkiisii isugu keenay. hal riyo ayaa wax walba dibagediday oo dhanka wanaagsan u weelisay. hadhayalsan riyadaan kaa leeyahay, mar walba xusuusno madaxaaga ayaan masaxayaa. waaqacan waxaan u aqriyayaa sidii inuu yahay riyo. ha u bixin saaxiib, masaafadu dadka ma kala fogayso, iskumana dhaweyso ee qalbiga ayaa doorkaas iska leh. adiguna xawlal mariidkayga amba garka wadnahayga wadii ka dhowdahay. habahayna kala dheereeyeen masaafooyinkii. yaqiin badan oo ilaahay lagu qabo saaxiib iyo dadaal yaroo mawraan ah ayaa arrinkaasi ka feenaya. haddii dadaalkaasi laga maarmi karo Maryan ayaa ka fursan lahayd markii ay taagdarra halkii u dambeysay ka maraysay ee lagu yidhi وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قل جردك يا تمريتك ولبس العضي قرتنا عيك وصوت عدن السعي. نبادين صاحب.